بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر واجد كان فرحية وكشين أصحاب تخالقة مركل إيه مقال عصب ويلش أنا إله كان مفهمتين ساق وحار وقراع يرقص كل ديل الترن عرورة اسكول قوقعتان إيمدي عناب إنا نسميه ويلش أنا أدو جدان هدي أدوبها هنا التلفون نمبر شاشة قرن صوع أما واتساب يجلسوا حرير قبلها قالوا حيدا فرحين تكالسوا حرير شاشة دون كسو قرن نمبر كان أنا waan yaabay maraadi liga dhigaysana horta yaa commentiga marka la igu soo qoro inteen kala soo xiriirnaa videogan dib u siraaca waxaas dhaaso madki ilowday mise yaa number shaashada fiir insha Allah waxaan rabaa inaan sameeyo milk shake fudud waa caano iyo shukulaato iyo wax yar oo sokor ah rabaa inaan isku daro ma sha Allah tabarakallah caanaha waa caanaha lo'da caanaha freshka waaye caano booraha waxa ka fiican xagga cabitaanka hadii la dhaho caanaha lo'da freshka ka fiican intaas kadib waxaan rabaa inaan ku daro ilaa 3 qaado oo shukulaato ah shukulaatadan wax sokor ma lahan shukulaatooyinka qaar sokor ah ku jirto kuwan sokor iyo waxba ma lahan saas ay tahan waxaan rabaa inaan ku daro ilaa 2 qaado oo sokor ah adaa ku badin karo sokorta adaan ku yareen karo 3 qaado oo maxaan ku yiraahdaa shukulaatada budada ee markaan ku daro caanaha ilaa 3 galaas iyo bar waaye 3 galaas iyo wax yar waa ma fahanteen kadib waxaan ku darayaa 2 qaado oo sokor ah qiyaasta marka aad sameyn lahayd ayay ku xiran tahay caanaha ama inta qof oo macnaha u sameyn lahayd caruurta intaas kadib lagama badinaayo kadib waa isku qasaysaa si fiican waa inaad u qastid si caanihi iyo shukulaatada isku dhex galaan haddaad doontid furuuta ugu dhex shiidi kartaa laakiin milk shake-kana ugu fudud oo subaxdii maxaan ku iraadaa waqtina kugu qaadanaynin saas oo soo gadgadinayaa caanihi iyo shukulaatada isku milmaan rabaa ugu horeen hadii ku cusubtay channelka waxaan ka codsanaa subscribe ina taawatid kadibna gambaleelka taawsiimo hadii aad gambaleelka taawatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo caagadahana u jeedaan way iswataan faanteen sad waay kuwa qaarna waxay leeyihiin jubadahan oo biyaha ama cabitaanka lagu shubto kuwa qaarna ma lahan kii markaas u baahan tahay adi xagga WhatsApp igala soo xiriir insha Allah wixii meeqa waay iyo maxaan ku iraada intee ka heli karaa iyo WhatsApp igala soo xiriira wixii dhiirigelin ahna comment nagu soo qora waad mahadsantihiin waxa ku soo kala shubayaa caagadahaas u jeedaanba intaas kadib waxaan rabaa inaan sameeyo quraac yar oo nafaqaysan oo ayaga ay iskoolka u qaataan marka hore waxaan soo qaatay digsiga dabka saaraya digsiga waxna ma ku dhagaay mana ka xuqmayaan waa original ma fahanteen kuwana diyaar waa hadii u baahan tahay waa lagu keenaya hadii reer Nairobi aad tahay waa helaysaa hadii meel ka baxsan aad joogtidna baska iska bixinaysaa ama kaarigooga lagu soo dhiibi karaa caadi waaye digsiga dabka saaray saliid yar aan ku shubay ama saliid zeytuun yar ku shubaysaa kadib waxaan soo qaatay 4 xabo ukun ah wax yar oo cusbo ayaan ku daray ukunta waan soo qasaaya dhinac kale waxa ay diyaarsan jibsi ama baradho oo maxaan ku radaa la soo kariyay baradhadii oo karsanaan digsiga dabka saaray waan ku shubay kadib waxaan soo jarjaray rootiga slice-ka rooti ayuu nooca si yar u soo jarjaraysaa waad ku kordadaadinaysaa intaas kadib waxaa soo qaadanaysaa cheese mozzarella ama farmaajo oo maxaan ku radaa si yar u soo hooshay oo ku kordadaadinaysaa kadib ukunta ay ku dul shubaysaa ukunta markaa ku shubtid waxaa sameyn kartaa waa daboolaysaa dabkana u yareynaysaa dab laciif ka dhigaysaa waxaa la rabaa tartiib inuu bislaado inaysan ka gubanin kadib dhinac kale u gudin kartaa laakiin waxaan rabaa wixii dhan isku walwalaaqan faanteen maadaama aan weelal kala duwan aan ku kala shubi rabo waxaan rabaa inaan saas u walwalaaqo ukuntii cheese-kii rootigii baradhadii wixii dhan is dhex galaan isku dhagaan rabaa qoqoyaana ka muuqda kisto daboolan saaraya waxay kadib waa ku soo laabtay hada diyaar waaye waxaan rabaa inaan sii diyaari waayo iyadoo kulul baag looma gelin karo sama weelka lagu shubi karo markaan saan u diyaari kadib aan quraacdooda u diyaarinayaa intay ka qaboobayso ku filan ayadoo saan u qiiqayso waxaa waaye weelka hadii lagu xiro neefta lagu sii celiyo waxaa uma fiicno sama xitaa caafimaad ahaan ma fiicno soo waxaan rabaa inaan idinku tusiyo kaliya aan ku rido weelkan wuxuu leeyahay labada meel midna 4 meel uu leeyahay idin muuqato midka 4 meel wuxuu wataa jubbadu wataa kuwan kale labada meel lehna jubbadan ma wataan macnaha caagadahan oo batolada biyaha ma wataan kan wuxuu leeyahay labadaas qaado iyo qoryaha shiineeska ee baastada ku qaataan ma fahanteen waayo waxna wax isleeyihiin caruurta jeclaadaan camal waxay ugu soo rideen daboolkiisa dhab ku siinaysaa qaadadiisana meesha kore ku jirtaa ma sha Allah kan ma wato jubbad kan laakiin madooriga ku sabaran yahay jubbadahaas ay wataan ama caagadahaas oo biyaha ay wataan ma fahanteen saani isku wataan ma sha Allah kalarada pinkiga iyo bluegaas waaye wax ka dadaadanaya ma ahan quraac yar oo borotiin la aad u macaan badan laga sheekeyn karin dhinacaas kala caaniyo gadka u saaraysaa inta wixii markaa u diyaarsan u saaraysaa daboolkiisa dhab ku siinaysaa
wax kaa dadaadanayo maahan ama canug ka dadaadanayo maasha Allah tabaarakallah. qadada oo maxaan ku radaa iskoolka ay u qaataan ilmahana waan soo gelin doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. tan waa quraacdii ay qaadan lahaayeen mid walbana waxay wadataa maxaan ku radaa dhaladeedii ama jubbadeedii caag waaye dhala ma ahan. sheekadii quraacdii ay qaadan lahaayeen saasay kusoo dhamaatay tii ay cun lahaayeen rabaa inaan sameeyo fahanteen. birta canjeelada dabka saare canjeelaan rabaa inaan kariyo iyo suugo dalac bilaash oo ukun lagu hagaajinayo quraac yar oo nafaqaysan oo kaal iska arag ah. subaxba wax baa la siiyaa anaga subax walba canjeelo dab ma saaran ma fahanteen. subax canjeeladaas subaxna mishaariya cabaan subax maxaan ku radaa Weetabix waxyaabahaas la siiyaa adi marba waxaa la siiyaa. canjeelada xabad u horeysay kusoo dhajiyay saaneen kusoo baxday maasha Allah. canjeeladii oo dhan saan ayaan kusoo dhameynaa sida had idiin muuqato. intaas kadib waxaan rabaa inaan idin tusiyo suugada aan sameyn rabo canjeelada lagu cun rabo dalac bilaash ukun lagu sameynayo kaal iska arag rabaa inaan sameeyo insha Allah. digsiga dabka saaraysaa wax yar oo zeytuun ku shubeysaa jeex basalan ku daray waxa suugeynaa basasha inta ka yara bislaanayso. intaas kadib waxaan soo jarjaray karooto iyo waxaan ku radaa qudaar rabaa inaan ku soo daro markay basasha sidan kugu bislaato qudaar ayuu nooc aad jecesha ay ku soo darsanaysaa. waxaan rabaa inaan ku soo daro yaanyo hal xabban soo jarjaray barbarooni iyo karooto intaas ayaan ku soo ridayaa. intaas kadib anigoo wax kale ku darin daboolkan dabka siinayo waxaan rabaa kasto inaan yara huuriyo alaabta marka isku huurto waxaan rabaa inaan soo shiido insha Allah kadib aan ukunta ku daro. hadda diyaar waaye waxaan soo qaadanayaa garaafaha yariiska ah garaafiyaan kusoo gurayaa. garaafahan waxay iswataan mashiinka gacanta waynaga go-an yihiin laakiin markay imaadaan insha Allah waa idiin soo sheegi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. mashiinkan gacanta oo wax walba aad ku shiidan kartid cunooyinka caruurta mishaarida shurbada waxyaabahaas lagu shiidan karaa. intaas kadib waxaan sameynayaa waa shiidaa si fiican karootaa ku jirto waxaa caruurteeda karoota iyo barbarooni lama tusi karo ma fahantay. laakiin si kastaba noqotay waxaa la rabaa inay cunaan sida ku cun lahaayeen waad sameyn kartaa soo maahan. hadda meeshan barbarooni ku jira ku dhahayo karoota ku jirto ku dhahayo waa maya waa shiidaysa si fiican. intaas kadib waxaan ku daray qaadada haafkeeda oo barbarooni shiidan wax yar oo cusbo ah. kadib waxaan ku darayaa xawaaji isku dardar ah wax yar oo huruud ah adi ay xawaaji ku darsan kartaa. saan hadda markay tahay kaal arag si macaan u karisid way ku cunayaan canjeelada laakiin barbarooni iyo karootada day dhexta taagan tahay waa isku rafaadaysiina ku dhamaanta waxa lagu leeyahay waxaan aad ku darto maxaa waaye inkastoo caruurta isku mid ahaan. intaas kadib waxaan soo qaadanayaa 3 xabo ukun ah. ukuntii ayaan saas u saarayaa dabkan u yareynayaa daboolkan dabka siinayaa ukunta markay bislaato ayaan ku soo laaban doonaa insha Allah. alaabtan saamka u karnaysto waxaa la dhahaa shakshuuka al ma fahanteen. laakiin qasab ma inaa shiidid hadaa rabin xitaa iyadoo sida u taagtaagan qudaarta ayaad ku darsan kartaa ukunta. waan daboolay 10 daqiiqo kadib waa kusoo laabtay dabkan waa u yareynaysaa. ukuntii way bislaatay suugadii diyaar waaye maasha Allah tabaarakallah. suuga aan saliid badan lahayn dhadhankeedana laga sheekeyni karin canjeelada tan hadaa isku heshidaan ku dhahay lagama sheekeyn karo maasha Allah. waxaan soo qaadanayaa saxanka ku soo diyaarinayaa. subaxdii waxaa quraac badan yaa u baahanba wax badan oo caloosha la cusleenayo looma baahno liin dhanaan yar halka u soo saaraysaa nin walba inta ku filan asaga ka cunaayo. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen dhammaantiin waxaan idin ku codsanaa muuqaalkana like saartaan sii share gareysaan jazakallahu khayran waad ku mahadsantihiin daawashadiina koomentiyadiina dhiirigelintiina waa idinkaga mahadcelinayaa maasha Allah tabaarakallah. waxaa idinkaga tagayaa khayr iyo caafimaad mac salaam.